wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland ayaa tababar ku saabsan dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee dalka iyo sidoo kale qaab dhismeedka uu shaqeeyo waxyaha qaranka u qabtay dhalinyaro loo carbinayo hogaaminta iyo qaab dhismeedka dalka. dhalinyaradani oo xarunta daraasaadka ee CBI gacanta ku hayso tababarkaasina waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka ee Somaliland, agaasimaha guud iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaraddaasi dastuurka ee Somaliland. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka ee Somaliland, Jamaal Cabdi Muuse. waxaanu qaranka u qaabilsanahay laba arrimood oo muhiim ah. mid waxa weeye inaanu xiriirino golayaasha qaranka oo idinka laftarkiinu tababarkiina qayb badan ka government structure qaybaha aad aragteen ayaanu xiriirintooda qaabilsanahay. waxaanu ka xiriirinayna waa hawlaha socda, hawluhuna waa shaqada qaranka ee waajibaadka. talabaad waxa weeye dastuurku waa fundamental principle document uu dal kasta leeyahay, waa heshiiska ugu sarreeya ee dal leeyahay, waa dokumentiga ugu weyn ee ummadi ku heshiiso. marka waxaanu gacanta ku haynaanu mas-uulkana wax fudud ma waa wixii ugu weynaabana lagu aaminay. waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka runtii inuu wasaaradda soo kordhiyo, annagana naga dhigay dadkii ku aaminay hawsha wadayay. waa sharcigii ugu sarreeyey, heshiiskii ugu sarreeyey, wixii ugu sarreeyey ummadi lahayd inaan mas-uulkana runtii sharaf weyn bay noo tahay. heshiiska dal iyo dad ee idinkuna aad doonaysaan aad hogaamintiisa iyo sharci dejintiisa iyo garsoorkiisa aad wax ka barataan baan runtii mas-uul ka nahay. taas waa wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka. shaqadaanu haynaa waa sidii dadkaan u gaadhsiin lahayn wax ka fahanka iyo wacyigelinta arrimaha dastuurka iyo wadaniyadda. tababarkani ay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland ay u qabatay waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada loo carbinayo hogaaminta dalka. كل وسارة way ka dhex muuqataa xagga waxqabadka marka la eego, xagga social media marka la eego, waxqabadkeedu aad buu xagga xiriirka baarlamaanada kala duwan ee Afrika oo maalmahan baan kula soconay social media iyo TV-yada. aad ugu faraxsanahay maanta waxa weeyaan dhalinyartan maanta sida wanaagsan inaga soo qayb gashay iyo macallimiinta sida wanaagsan ee casharada u bixiyay. aad bay mahadsan yihiin macallimiinta Maxamed iyo Yusuf, aad baan ka mahad celinayaa. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Somaliland, Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, oo ka waramay ahmiyadda ay leedahay in la barto dastuurka dalka iyo ku dhaqankiisa. sidoo kalena waxa uu dhiirigeliyay dhalinyaradani loo carbinayo hogaaminta dalka inaad tihiin yani dhalinyaradii hadda iyo mustaqbalka labadaba. waxa weeye wax weyn baana qaban kartaan. sidoo kale waxay ogtiin xukuumaddeena maanta jirta inay dhiirigelinayso dhalinyarada sidii ay maxaan dhahay leadershipka iyo hoggaanka uga mid noqon lahayd. idinkoo og agaasimayaasha iminka wasaaradaha iyo wasiirada intiba inay da'diinoo kale ay maxaan dhahay aada ugu badan yihiin. runtii taasna waa tusaale wanaagsan oo waxa weeyaan muujinaya xukuumadduna siday uga go'an tahay in dhalinyaradu ay hoggaanka ay runtii ay hogaamiso. waana markaa u diyaarnaa platform ciddii hawsha wadi lahayd, ciddii xaqiijin lahayd oo runtii idinka iyo inta idinla midka ah oo aynu rajaynayno dhalinyaradeenna qof waliba meelunbuu mas-uul ka noqon karaa. qofku markuu markaa waxa weeyaan aqoontiisii leeyahay oo waxa weeyaan uu jaamacada ka soo wada baxay ama wuxu dhow, markuu dastuurkiisii iyo shuruucdiisii garanayo, markuu saddexda dhardhaar siday u wada shaqeeyaan iyo siday u kala shaqeeyaanba garanayo. waxa weeyaan saddexdiinan group ee maanta barkiin baranayaan garsoorka iyo cadaaladda, barkiinna baranayaan fulinta iyo xukuumaddii, barkiinna uu baranayo maxaan dhahay golayaashii iyo xeerdejintii. waa saddexdii dhardhaar oo markaa waxa weeyaan wada shaqayna ka dhaxayso. waxa garanaysaan sida loo wada shaqeeyo, waxa garanaysaan tiim waliba siduu gaar ugu shaqeeyo baa garanaysaan. saddexdaa haddii aynu ka hana qaadno waxa weeyaan waxaynu nahay qaran markaa wixii uu doonayay achieve gareeyey ama gaadhay oo waxa weeyaan guulaystay baynu nahay. annagu markaa ka wasaarad ahaan kow mar haddaan u xil saarannahay dastuurkii aanu u xil saarannahay iyo sarreynta sharciga, waa inaanu geed dheer iyo mid gaabanba u fuullaa sidii aanu arrintaa ku xaqiijin lahayn. waa inaanu dhaxal uga tagnaa ubadkeenna. waxaa ogtihiin inaynu maanta runtii aynu marayno
inaynu manhajkeenna curriculumka wasaaradda waxbarashada aynu ku darro maxaan dhahay wadaniyadda iyo civic educationka oo ma doonayno uun inaanu sibinaaro keliya kaga tagno maxaan dhahay halkan inaynu wax dhaxal dheer oo waqti dheer jiri kara aynu soo saaro 30 sano soo socda iyo 40 sano soo socda arday dhalinyaro jaamacadaha ilaa dugsiga hoose ku soo qaatay wadaniyadooda dastuurkooda iyo shuruucdooda iyo kala dambeeyntooda tababarkani ay wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ay u qabatay dhalinyaradani loo carbinayo hogaaminta dalka ayaa noqonaya sanadkii labaad ee loo qabta dhalinyaradani iyadoo wasaaradani ay tababaro u qabato qaar ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha dalka ee qaar ka mid ah gobolada dalka iyo dhalinyaradii shaqo qaran ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa shahaadooyin ku saabsan tababarkani ay qaateen dhalinyaradani loo carbinayo hogaaminta dalka halkaasi ku guddoonsiiyay Aydaruus Maxamed Axmed Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida